بسم الله الرحمن الرحيم حدنا waxaan kusoo dhaweynayaa nabadoon Sadiq Xasan asagana kalmateen inuu ka yir ay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan soo dhaweynaa horta gubasha ugaaska noo fadhiyay aad aan soo dhaweynaa runtii shirkayna maanta wuxuu ka xisaabsan yahay inaan ka hadalno danaha deegaamada goboladayna jubbooyinka oo culayska fuulo in aan ku wada hadalno sida oo beesha direed iyo sidaan jireer weyna culayskaas waxaan leenahay in ilaahay noogu dulqaado runtii iyo ilaahay ku tuugaynaa insha Allah fadhagayn waa noo kow hadda noo bilaabadi insha Allah kulli waa socod doonyaa runtii salaam alaykum aad buu mahadsan yahay Mr. Sadiq waxaan kusoo dhaweynayaa Mr. Ali Bakar Shifala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa aan ku mahadcelinayaa ogaaska oo meeshan oo noo dhigay fadhiga noo dhigay oo aan isku imaanay maanta arbacada ah oo taariikhna 22 tahay 22 kay tahay aad aan ugu mahadcelinaynaa maasha Allah maasha Allah maasha Allah marka meeshan waxaan isku imaanay inaan ka wada tashano yani jubbooyinka inaan ka wada tashano meeshan isku imaanay يعني جلويني يا مالتنا سلادينتا ودرت ماشان سكول ماني إلهي waxaan ka baryeena fadhiga ugu roon inuu noqdo aan ku guuleysano marka insha Allah taala fadhiga koowaad hadda noo furmo waaye fadhigana uu socon doona qof walba oo macnaha jubbooyinka oo ka tirsan qof ka ashan oo wada tashigan hadda aan noo bilowday ma jiro qofka nagu soo biirana waa ku soo dhaweynaynaa labada gacmood baan ku soo dhaweynaynaa oo si farxad baan ku soo dhaweynaynaa oo danta Jubbaland qofka nala wado insha Allah taala biidna al-kariim ku soo dhawaada tafadal ku soo dhawaada waan soo dhaweynaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaasi waa warbixintii ugu talgaleen odayaasha direed iyo jireer weyne ka soo jeeda jubbooyinka maanta kulankooda ku saabsanaa in ay kaga hadlaan xaaladda guud ee jubbooyinka iyo sidii dardargelin loogu sameyn lahaa maamul u sameynta sida maamulada kale loo dhisay ayay kaga hadlaayeen waxayna isku raaceen in ay ka soo saaraan warmurtiyeed oo hadduu ilaah yiraahdo warmurtiyeedkaadna lagu faafin doono dhammaan social mediayaasha wadanka ka jira si oo arrimahaas waxayna ugu baaqeen beelaha kale oo ayagana jubbooyinka dega in ay ku soo biiraan gogoshan oo la bilaabay oo maanta ay taariikhdu tahay 22 bisha afraad 2020 si ay markaasay u noqdaan dad markaas si hal meel ugu wada jeestaan dib u dhisida iyo maamul goboleedka Jubbaland insha Allah wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh